ياش igu horreeyeen waxay ku hadleen waxyaro waxaan ku dardari tusaale wuxuu yiri nin rag haduu alla ka dhigo oo nin rag ba aad tahay saddex yaa la noqdo haddaan noqon wayso saddex noqo in rag hadii alla ka dhigo sheekh qur'aan oo dugsiyaal qabto oo qaalmayaal qaato oo qur'aan noqdo waa qiimo ragayd waan noqon wayso qurba lagu qabaya iyo wan lagu qorgeeyo ba qamiisleena haata adu quraan la'aan ahaan buu qayb ragad baa ku jirtaa wuxuu yiri jikri qori oo qalbkiisu wato ilaahay qurux qaado dhiga qaado waa qiimo ragayd qaadan way suur ablay labada qaar ka cado sameeyada lagu qataar qaadi haddana qaadan way suur qortoon mireeran ahaada adi qalb la'aan ahaan buu qayb ragad baa ku jirtaa gabar afka qadiid madow yahay gabar abka qadiid madow yahay oo timaha qalan qool yahay oo quraxda qaabad alla u dhiiba qaadi war qiimo raag waraatan yaa qaba hebel oo qurux badan ah yakoob ku hay waad qaadan way suur taa waad ka gaari waysi gumeys qanjacalka qabnayna haata adu qodbalaana aan buu soo waxa garta ma aha hadaan haweenon maanta aan barlamaan u haweenay horta qiimo weyn baan yaan iskaarteenayna ogaada korba usana waa qiimo ragay hadii maanta waxa waaye laakiin ragani u taala shimbirey iyo sangur iyo waxaan u badanahay no anta aan u badanahay kooreyna sidoo soo bedel anama ka saynabo hadii sidaa waxay leeyihiin ninka idin jirtaa laakiin wiilkaas waan haduu uu helina ilaahay idankiis kor Allah ka dhigo hadii kalena ilaahay idan garabkiisa Allah galo waan qaadno wiilka asagana sheeniga muwaafaqadiisa caaw sheeniga rag inta dhashaaw intay aad rag baa soo waday inta loo soo waday ragii asaga ay talin jiray ragii ka tagay waak haddaan tala qaatan noqon weyna tal xumad soo nama dambayso sheenigayow middan maanta ugu xigto waa tala sami taladan maanta aan hayno walaalahanaga ay noo keenteen waan qaadnay bidibaan qaadnay ilaa yaan meel cilla kaga tegay yay noqonin hadalkeena hal dix lagu lisay naga noqonin tii dhaarwe saangur hal dix lagu lisay naga noqotay tan ay sidii naga noqonin walaalayaal hadal badan baa ruuba buuxiyo ninka walaalkana waan qaadnay ina xariinudo waan qaadnay bidibaan qaadnay dagaal caali afkiisa ku hadlahaya waan qaadnay wax garad waa salaamantiin salaan kadib waxaan rabaa aniga hadal badan ma sii qabi waad arkaysaa maamul duqay markay bahalka qaadaba ooynaysa maxay la ooynayeen haad habeenka ay waxa la yiri waxay kiciyeen baa jira waxay ka ooyeen baa jira duqayda wax badan baa madax laga istaagay waa la caburiyay ana eri baa badan baa soo mareen marka hadda waxaan u malay heeriyadii baa iska rogaan u malay heeriyadii gumaysiga in la iska daadina hadda ayaa u arkaya marka ilaa meesha u dambayso ina xareednu oo maanta MB u hawooday horta annagoo dhan baaba MB u hawoon horta uu naga qaaday heeriyadii oo gumaysiga uu naga qaaday oo buusaas uu naga qaaday marka annaga hadda intaan u yeeray kaale istaag baan dhahay asaga maskaxdiisa aqligiisa ku soo istaagay annagana aan la qaadno waa waajib weey reefood baa MB u taagan waan diidanahay maanta horta waxa weeye waa wax kale way Xuseen naga MB u istaagay oo maxaa ahaa uu istaagay waanan diidaynaa waa wax kale marka taa naga harto hadii uu soo istaago ilaahay buu naga keenay nin hawoodo soo istaago annaga waan garab taagana sida hadda aan u garab taagana ilaa meesha u dambayso waxa la yiri mid yar baa hadda nimay dhibi doontaan ma ku darraay waxa la yiri islaan umushay baa yaa wiilkeedu ma yiri aayo maxaa noqotay meesha aabaha ka dambeeyaan faa'iido leen moogi waan faa'iido hadda saaxiibkay sahal baa naga dambeeyay ana iri yaa naga dambeeyay waxaan fali doonno ma ogi kama dayraya hadduu asagana kala daalin doonin waxa weeye Xuseen naga igu israacay ninkana wuu qaaday wuuna wataa wixii kale oo dhiboo naga madana ilaahay naga qabto marka sahalna inuu na raacaan rabnaa wiilku oo nala qaado oo gacanna siiyo markuu imaadana aan u tagno oo nala wiilka nala qaad baan rabaa farto kali fool ma naqdaa la yiri marka sahal inaan garabsano waa nin siyaasi waa nin madax
inaan isku hor qabano meesha aan geyno oo muxuu ahaa uuna qaadan rabna asagana aan u tagno oo aan la hadalno meeshii ruux oo naga jiro waan doonaynaa halka ruux meeshuu naga jiro waan doonaynaa marka sidaas ogaanaysaan waa mahadsantihiin tan labaad maxaa u malaynay muddo 53 sano xuseen nagay nin baarlamaan sheegto lama arkin maanta waa maalintii ugu horreysay ee baarlamaan aan sheeganay and I think this is our opportunity maxaan rabaa xuseen nagay meeshan fadhigan intaan iskugu imaanay aan dhahnay bishaara xareed waan qaadnay ilama oho ani midaas mid ka duwan baan ii sheegi rabaa maxaan rabaa sidii aad u qaadeen bishaar in la muujiyo oo la isku raaco bishaar in la qaado maxaa yeelay maxaan ogsoonahay intayna hadda meesha iskugu imaata kuuraayna muxuu u badan yahay township ninkana wuxuu ka taagan yahay waa faafi soo saamaho meesha iyada maxaan rabaa nin walba inuu ku seexdo in faafi kuuraa loo bedelanayo dhicisa la geyn meesha ugu dhawaa dhicisa oo ballot box laga rido tan kale maxaan la hadli rabaa our candidate bishaar xareed waxaan ku sheegi kuuri waa sheegatay faafi waan ka taaganya dhado waana ku dhalatay nin kale ma laho waa meesha ku dhalatay jaarajila waay waa xudunti faafi maxaan rabaa kaliya inaad muujiso arintii aad sheegatay maanta inay naga noqon ay naga dhicisoobin sida u sheegatay yaa rabnaa inaan geedka ku geyno oo qasab aan uga dhigno reeyaxye iyo cawda wixii meesha taagan inay naqadaan maxaa yeelay waa maalintii hore baarlamaan sheegnaa naga jaraan rag us cabato aniga nitatangaza msimamo yangu kureyga intuu ahaa from now faafi waan u guuray naniko naweelo bishaar anoo ku hadlayo codkii dhalinyarada xuseen nagay and today I will start my mobilization dhalinyaradana waan qaadi waxaan hadda iniga aad hadda bilbilawdeen anaga mar horaan bilawnay wax noo qabsamo oo noo socdo oo noo soo baxo oo na muujiyaan wayne anaga barkintaan oohinta ku dhamaysanay kutoka maalinta cabdi careed ee maanta oo MB aadan barra ducaale uu ku jiro intaa wiil xuseen nabayo intuu isa soo bixiyo maanta baarlamaan baan u taagana dhaho waan wayne horta ilaahay baa mahad iska leh dabeeshana nin walba mar bay martaa dabeesha maanta waxaan u maraynay mid ay maanta na martay inay ay tahay maanta ay martay inay tahay waxaan ku ooyay oo nool ku fikirnaa oo ku maarta anaga bilcaanta ka hadalnaa hatta bal ku haduu rabaa hare application-ka intuu qaato geedka geysto oo la dhaho wiil xuseen nagaya maanta baarlamaan u soo joogsaday ma la waa wiilasha kuray badan oo intaan u yeeray aan dhaha jirtaa war wax akhristaba niguma jira ma maamilo bulo kala tiin maxay nagu dhacay marka waa ilaahay mahadiis waa sidaan shicaad sheegteen waxaad wadiin waan ila qaadnay diyaar baan ina lahay midda ugu dambeeyana nila tagaynaa aniga dumarkii cawdaaq baan ahay 26 sano gabadha cawdaaq yaan hogaaminaya aan jamanka xamdi ashukroot dawladda Kenya qaanado badan bay qabtaa qasnadaha nimaan waxba ka soo baxsan waxba ma helaayo qasnadaheeda inaad fahantiin baa la rabaa qasnadtii oo Kenya aad wax kala soo bixi leedaan waa inagoo maanta baarlamaanka aan ku guuleysano oo wiilka anaga aan meesha geysano oo ku guuleysano oo ku soo galno qasnada waan helay markaas yaxya maana dhibin intaasaan soo dhisayna hadda siduu yarkii sheegay weliga anaga maana dhibin ilaa maanta hadduu naqaad waa inaan dhibno lakad ku noqonaan rabnaa waana soo galaynaa waxaan aniga aan ku daraa oo kale gacwaa quraan dhigan guuna waa ilaahay lagu guura gaadiid ninkii waa geedku raraya loo gasheema goro dheer gaalana islaan male god akhara gadoon male gidisley gargaar male gabar xabasho guur male geel gubayda agaheed golol weynta goobso ga meel ilaahiin gaduudkii bartire maalinkii lisgalay nimankii galanay ilaa goobtaas gaway garwaan le gudaaweyn goobta xagar dheer raama geedlaay guji meel ilaahiin gaway iyo garwaan le god ijaara iyo goobta caawa aan joognaba guul inuu ku taagan yahay waad garateen wiilkan guulahayow ilaahayow jaankii xuseen nagay haddaan nahay maanta goolka noo dhali guulahayow ilaahayow
gaankii maxamed nagay haddaan nahay xuseen nagay haddaan nahay rabow goolka noo dhale gardarra uma joogsanin gurrana uma joogsanin goodi uma joogsanin gacallimo aan u joogsanay guudka cawdaaqoo idil garan ku leenahay guulahayow ilaahayow goolkan maanta noo dhale guulahayow ilaahayow annagoon gardarro ku soconin goolkan maanta noo dhale goonta maanta noo dhale gawdii kale waxaan idhi goonkii xuseen nage sidii lagu garanayo maalinkii gaaris la degay caawa oo intaasoo dawle ay gool aan istaagnay eedkaan waad gafteen nalama dhihin oo cawdaaq nama gardarin yaxye nama gardarin cabdikariin nama gardarin guul un baan ku soconayn goobtii laiskugu imaaday annagoo gaanka cawdaaq gaanka raayaxiye goobtii u yareed annahay maalinkii hadallama annaga un baa noola horumarin jiray maantana nin aan ka boobayno iyo nin aan hadnay iyo nin aan daraabayno annagoon jirin xaq inaan ku leenahaan u malayna xaqi waa wixii maanta meesha imaaday xaqi kii ka horreeyey waa naloo gartay guulahay oo ilaahay uu goolka noo dhali